waxaan jecelahay inaan kaa faa'iidaysto oo ilaahay subxaana wa tacaala intii aqoon kaa dheeraysiiyey aad noo faa'iidayso. waxyaalo badan naftayda ku yara khalkhashay baan jecelahay inaan si fiican u fahmo. kow, waxaan ahay qof muslin ah oo diinta islaamka ku tiirsan, ku dhashay, ku barbaaray, aan aqoonin ilaa jadka jad inaan meel laba aanay diinteeda cid kale ka soo dhex gelin. waxaan ahay muwaadin degan berbera, waxaan ahay mas-uul ka mida mas-uuliyiinta gobolka ama degmada. meeshan anigu aan xukumo aan mas-uulka ka ahay ee ilaahay subxaana wa tacaala aniguna igula xisaabtamayo ee aan isaga kaga boqo. marka diinta loo eego, diintu waxay ka tahay xagga ugu hooseysa, taxadka ayay ka tahay. marka macnaha khalad fahansanoo diinta islaamka laga ilaalinayaa. meeshan dowladda hoose la yidhaahdee lacagta ummadda lagu soo xareeyo, sababta looga faa'iidayn leeyahay wax anigu aan sameeyo mooyaane wax ku iga horreeyey ku dhiiridayna ma jiro. waxaan anigu sameeyana aniguma dabada ka waduuna idhaahdaa maxaa malcaamadaha qur-aanka loo dhisi waayey, maxaa masaajidada loo dhisi waayey, maxaa masaajidada gunno loogu qori waayey sida kuwa kaleba loogu qoro. waa wax aniga iga timaado. marka waxaase wax keli kuga ahay malaha diintiiba badda ka hor imanaysaa. waxaan jecelahay inaad anigana ii bayaamisid, bulshadana u bayaamisid. lacagta aan maamulo ee ummaddu ay leedahay ee malaayiinka doolara, markaan diinteena islaamka eegno waxay kaga jirtaa taxta sifir bay kaga jirtaa. waxaanu qabanaa waddooyin malaayiin doolar baan gelinaa, waxaan dhisnaa iskuullo, waxaan dhisnaa xanaanooyin, waxaanu dhisnaa guryo, waxaan u qabanaa bulshada adeegyo aada u ballaadhan. haddana markaan ku eegno isha diinta ayay halkay ka taagan tahay, waxaan jecelahay inaad noo yaro bayaamiso dee aan ka tanaasulno, ka ilaalino, anaguna aan iskaga tagnaba dee. waayo hadday diinteydii ka hor imanayso sabab anaguna aan u quudanno, aan u joogno, aan uga shaqeyna ma taalo. marka inaad noo yaro bayaamiso waxaanan ka shaqeynaynaa ma diinta maxaa halkan hoose ka gelay. nimankan gaalada un bayna fahansiiyey inaan lacagta aan xaggan la gelinin, in masaajidda waaweyn la dhiso, la dhiso, miisaaniyadda annagaa maamula, aniga golahaygaa maamula. waxaan ana ilaahay dartii ha loo bixiyo mudnaanta koowaad baan ka dhigi lahayn diinta islaamka. marka bal waa problem haysta dalka oo dhan, dowladaha hoose dalka oo dhan. marka waxaan jecelahay sheekh mustafe ilaahay ku barakeeye inaad noo waadixiso. waxaan hadday wax diinta islaamka hor imanayaan nahay, qofka u horreeya baan nahay xilkan iska casiilay ugana tegayaa. haddii waxaas diinteenna imanayso ummadda islaamka o dhan baan ballan qaadayaa. hadday diinta islaamka waxaan ka shaqeeyaa ka hor imanayso oo ay lidi ku tahay, si inteeda noosha inta i hadhaan badbaadiyo. haddii kale waxaan hoos u dhigay bahashan loo qarinayo diinta islaamka taxadka loo geeyey. waayo agaasimo malaha gaara, agaasimaha diintii oo qaafta kuma jiro structureka meesha. dhaqaale loo halakoodgareeyo diinta oo lagu shaqeynayo oo sida kuwa kaleba lagu abaabulayo kuma jirto. mas-uuliyaddiina anigaa hayo, gacanta ku haya. intaasaan ku weydiinaya. wabilahi tawfiiq. masaladan u dambaysa ee guddoomiyuhu i weydiinayo, dee malaha anaan guddoomiyaha weydiiyo ku celiyo. waxaa iska jira horta sideedaba systemkan dowladnimada ee idaariga ah reer galbeed baynu ka soo koobiyeyn, ama ingiriiskii ha ka tago, ama dowladii shuuciga ka dambeeyey ha laga soo qaado, ama reer galbeed baynu ka soo koobiyeyn. sidii ay waxu maamuli jireen baynu rabnaa inaynu waxu maamulno. kuwa inoo yimaadee hay-aadka iyo gaalada iyo inta kale inoo joogtaana hadday yidhahdaan seminaaraanu disiinaynaa saa loo maamulo, iyana tii unbay inoogu celiyaan oo inoo dhigaan. iyagu waa secular governments, secular states, waa duwal cilmaaniya ama calmaaniya. macnaheedu waxa weeyaan diin dowladdu shaqo kuma leh. iyaga diin dowladdu shaqo kuma leh. dowladdu waxay shaqo ku leedahay rafaahiyada mujtamaca,
bulshada uun sidee nolosha loogu fududaydin karaa sidaa ogeed dee systemkoodu kaasu ku salaysan yihi laakiin innagu haddaynu muslim nahay aynu nidhi dad muslimiin aynu nahay oo dastuurka waddanka u dejisan qodobkiisa 5 uu ku qoran yahay wixii kitaab iyo sunno khilaafsani inuu mulqi yahay dee waa inay meel ku yeelataa min dowladda hoose laga bilaabo ilaa dowladdeena sare waa inay meel ku yeelataa waa wixii inoogu weynaayay aynu haysanay iminkan waxaan idin lahaa dunidu waxaa jira waxay sanka iska geliso oo cilmi la isbaro oo ah luqada waa waxa cilmiga sameeya bay dhahay identity-ga kuma tahay qolo waliba waxay rabtaa inaad iyada u ekaato marka kooday kuu dhigaysaa dee innagu ama wasaaradda waxbarasho ha ahaato ama wasaarad jaamacadeed iyo wixii ku saabsan ha ahaato ama dowlad hoose ha ahaato ama dowlad dhexe ha ahaatee identity-ga waddankani leeyahay mas-uuliyadda dee way wada saaranta dadkani siduu muslim u ahaan lahaa qofka mas-uulkii isaga dastuurkiisuna u xil saaray diintiisuna u xil saartay aakhirana waa la isweydiinayaa marka waxay u baahan tahay meeyar quri go-aamada ma gaadhi dee ciidan dhan baa la doortay soo maaha oo dee degmadu waxay leedahay dad ay soo dooratay degmada berberiin misay leedahay 13 musaafiriin 13 dee 13 kan baa laga rabaa budgetkii dowladda iyaga qorsheeya iyaga yidhaahdaa sanadka soo socda intaana waxaa lagu bixiya intaana waxaa lagu bixiya intaana saa loo isticmaalo dee iyaga mas-uuliyaddii diintu saarantee waa inay u qorsheeyaan cidda maamulka u joogta markaasi iyadu daily worka fulinaysaana dee waa inay raacdaayo fulisaa marka waxaan leeyahay waa xil idin saaran dhammaantiin adna aada fuliyaha ka tahay akhrina la isweydiinayo tan waddada waa lagu weydiinaya waa ka mid cumar bin alkhadaab baa laga soo naqlinaya inuu lahaa neefka xoole waddada ciraaq ku kufaana lay weydiinaya maxaad waddada ugu tacbiidin weyday bulshada ama nolosheeda adduun ha noqoto ama nolosheeda aakhira ha noqoto ama say adduun iyo aakhiraba u fiicnaana ha noqoto cidda maamulka u haysa mas-uulka ah cidda maamulka u haysa ama central government ha noqoto ama local government ha noqoto mas-uuliyadda in waddada loo hagaajiyo xaq bay u leeyihin mas-uuliyadda kooda baahan in wax la siiyo xaq bay u leeyihin mas-uuliyadda in caafimaadkooda laga shaqeeyo xaq bay u leeyihin mas-uuliyadda diintooda in laga shaqeeyo lagu taakuleeyo xaq bay u leeyihin sida tanba ahmiyadda loo siinayo tanna waa in ahmiyad la siiya sida tanba barjadka loogu samaynayo tanna waa in barjadka loogu sameeyo malihin yaan waddo la samaynin waddadu waa muhim malihin yaan dekad la qabanin dekadu waa muhim malihina caafimaadku waa muhim laakiin waxaan leenahay ka baahan in wax la siiyana waa muhim diintiisa in la baraana waa muhim masaajid iyo malcaamad in la dhisana waa muhim oo waddankeenna dadku inta badan marka diin la yidhaha masaajid baa laga fekeraa marka somalilandan waxaa laga yaabaa qur-aankii inuu qaali noqday haddaan lacag badan bixin karin dee macalku ilaa uu baktinaya isna waxbuu u baahaya ku noolaado laakiin waxyaaba sii qaaligareeya waxaa ka mid ah madraso quro waqfi ku jirta maba jirta ama way yartay macallinku gurigu kiraystay buu wax ku dhigaa oo nin kira ka sugayo dee haddii ilmo yar la yidhaahdo kirada guriga iyo macallinka wuxuu cunayay iyo wuxuu dhan ha laga wada qaado waxay ahayd dowladdeenna hoose iyo bulshaduba awqaaf inay sameeyaan ah in madaarista qur-aanka lagu dhiganaya ay sidaa in masaajidda u dhisayna inaynu u dhisno haddii macallinka la kafaalo qaadi karo in la kafaalo qaado si uu qur-aanka danyartuna u heli karto marka ninka 5 carruura dhalay ee maanta meelahan ku noole dee qur-aan iyo iskuulka maba bixin karayo hadduu beriisu soo helo ayaaba dhibi taagan tahay mas-uuliyadda marka waxaa le uun dee dadkii xilku saara waa laga yaabaa waxaynu haysanay inkastoo berberadee aadaan u tuhunno marka gobollada kale loo ego la yidhaahdo ishii dhaqaalaha fadhidaan haddana kolleyba waa yartay marka baahida bini aadamka iyo laysu egiyo waxa la hayo kolleyba baahida bini aadamka iyo waxa la hayo marka laysu ego way yartay laakiin intaasu baynu u baahanay in la qorsheeyo oo qur-aankuna wax yeesho diintuna wax yeelato dadkuna wax yeesho dalka iyo dhulkuna wax yeesho mid walba wixii loo qaban karayay in la qabto haddii la iska daba qabto maalinba in lagu kordhiyo
rooba maalin lama wada dhisin bay gaaladu ku mahmaahaan maalin qura wax oo dhan wada hagaajin kari mayno laakiin sanadba haddaynu qorshaha meel u badinno hore waynu socon karna waa la gaari karaa marka waxaan leeyahay waa mas-uuliyad dadkana wada saaran intii madaxwaana gaar u sii saarane dadaalka ha la dadaalo ilaahay baryadiisa iyo inuu ilaahay idin kaalmeeyana ku darsado ilaahay in badan barya in alla idinku kaalmeeyo sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam